marka aad maqasho Axmed Cali Cigaal waxaan filayaa in badankiin aadan su'aal ka qabin qofka uu yahay dhawaan ayuu dhismahan Broadcasting House inagu soo booqday waxaana wax ka weydiinay qaar kamid ah taariikhda heesaha uu qaaday iyo qodobo kale waxaan hadaba caawa idinkaga tagayaa waraysiga hobalka iyo Cismaan Cabdi Xasan oo ugu horeyn weydiiyay waxa keenay dib u dhaca la sheego inuu ku yimid fanka Soomaaliyeed ee xiliyadan dambe waxa weeye dal walba ama dad walba waxa kor u qaada oo dhisa oo macna u yeela waa dadka wax u bartay marka inaga de professoradeeni u raadin lahaa dhaqaale fanka ama fanaaniinta dhisi lahaa waxba uma ay qabin iyaga calooshooda u shaqeysta in dawladii waxba uma qaban karto de iyadii baan weli taagnayn oo de waxa maanta Soomaaliya ka jira wada ogtahay culumadina de waxay leeyihiin waxba waa la isku cadaabiyaa ha laga cararo ولو دي عذابته إلهي ليه وعند العذاب إلهي ونوجيه وجمت شيء إن علماء أذينيو واتان كويلو علماء واتشعلناه مقايا كستو إليهم بقى ودبت شوقنا وأنا دبت شوقنا وكوهلنا وقلوبته قلبك مسكحة شعل هدان قال اللوهلين هدان إمك BBC ذكرش غيسو هذا بريس هذا عنتي ميلا ساحتها يسن ولي ميادي ورسنا العاو وماي marka kuwii hore iyo kuwii dhexe iyo kuwa hadda fanaaniinta soo kacay intaba waxa haysta dhaqaale la'aan intaba waxa haysta caawin la'aan cid caawinaysa iyo cid u naxaysa ma haystaan marka murtidii caawin la'aantaas ayadana la tagtay dawladaan iyo caawin la'aan iyo dhaqaale la'aan baa la tagay waa tahay axmed heesa badan aad qaaday halkaan kuma soo koobi karno haddaan mid ka soo qaado walaashay gacalisooy heesaasi inoo sheegi kartaa macnaha ka dambeeya aniga dhibaata igu dhacday waqtiyaasha aan soo dhaafnay waqti ka mid ah dhibaatadii ugu dhacday waxay ahayd mid macnaha aan dhakhtarada Soomaaliya wax looga qaban karin gabadh aan walaalnahay oo la yiraahdo Zainab Cali Cigaal oo degan dalka Switzerland ayaa ii soo dirtay fiisihii iyo lacag badan iyada ikhaysay oo geysay dalka ay degan tahay dabadna dhakhtar bay dhigtay lacag aad u fara badan baa ay ugu bixisay in la daweeyo markii aan caafimaaday ayaan waxaan ku fakeray maxaad walaasha ugu abaalmuddaa lacagi macna ma samayso laakiin ma haysid oo Axmed oo lacag ma haysid koo meel inaad ka sheekayso inaad qalbiga ku hayso waxaas oo dhan wax ka weyn raadi oo maxaad gabadhii abaal uga dhigtaa alla ilaaha hees taariikha oo miya gabar ninna walaashi u haasay may alla ilaaha hees waxa ay tahay aad ku sheegaysid qiimaha ay leedahay walaalnimada macaankeeda ay ku tustay alla ilaaha ويلي عانا بانوغي وحبان كو شيغيا adduunyadu waa wilwilad hijradu waa kala wareeg wacdara baaxa degiyo wallayl baa lagu jiraa walaashayga calisoy axmed muddaad fanka ku soo jirtay waxa ugu weyn oo aad aaminsan tahay as fanaan axmed ahaan in lagugu xusuusto maxay tahay qofka markuu maqlo maanta Axmed Cali Cigaal waxyaabaha uu ku xusuusanayo ama aad jeceshahay in lagugu xusuusto horta midoogow fanaanku isagu isma yaqaan waxa yaqaan fanaan walba dal walba caalamka ku yaala waxa yaqaan shacabkiisa marka anigu waxa la igu soo xasuusanayo maba oran karaba waxa jawaabtaas waa si shacabka ma hoygi jacaylke hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa ma hoygii jacaylkee hammi anigoon qabin haween anigoon rabin heestu iga yeertaa habaykii taariikhdii maalintii
maalintii lahaadiyey haatan saacadday tahay